barnaamij sidii life iskaga dhaafan ani aruush muddo bil ama 2 bil ama life misl ciyaarno iska dhaafan marka ani waxaan bilaabay in qof walba life la galo aan la ciyaaro isweefo kale dad badan asxaab badan in la ciyaaro la qosqoslo kadib maalmahan kamid ah Sikiya dan isla galnaba ogeedeen Sikiya marka maxaa la dhahay aan life isku baranay isku fahanay iskaftan fahanay kadib caayada isku baranay Sikiya wuxuu qorsheysaday inuu maxaa la dhahay Turki imaado maxaa la dhahay oo sheekadan bar oo yani hadda social media dhan meel walba wareejinaan leefka ilaahay waxba ka dhaxay xiriirka ka dhaxay jacayl isku sheegteen in laga dhabeeyo sheekada dhan waxaa saacadihii ugu dambeysay baraha bulshada haystay khilaaf soo kala dhex galay Samara Queen iyo KCK taasoo ugu dambeyn lagu cadeeyay in haba yaraatee wax jacayl aanu ka dhaxaynin Samara Queen iyo KCK waxaana baraha bulshada la soo dhigay codad iyo qoraalo sir ah oo ay iswadaarsadeen Samara Queen iyo KCK waxaana barta ay ku leedahay YouTube-ka ay ka soo gashay muuqaal dheer Samara Queen taasoo xaqiijinaysa in haba yaraatee wixii ka socday baraha bulshada in aanu ahayn wax sax ah laakiinse uu ahaa jaliin oo ay iyadu agtarad ka ahayd sida ay hadalka u dhigtay Samara Queen ayaa sheegtay in uu baraankii ahaa barnaamijkii jacaylka ahaa ee ka socday baraha bulshada una dhaxeeyay KCK iyo iyada taasoo maalmihii ugu dambeysay dadku ay wax iska weydiinayeen jacaylka Samara Queen iyo sidoo kale KCK shun ahaanshihiisa iyo been ahaanshihiisa si walba haatay ugu dambeyn KCK iyo sidoo kale Samara Queen khilaaf soo kala dhex galay awgeed ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay ahayd mid muuqaalo live laga soo galiyay aalada TikTok halkaas la isku jafayay aakhirkiina Samara Queen ay afka furatay sheegtayna in habeeraatay wax jacayl aanu kala dhaxaynin KCK laakiin ay ahaayeen mid ay fiis ku raadsanayeen sidoo kalena barahooda internetka gaar ahaan social media ay ahaayeen kuwa ay ku kala kacsanayeen oo dhanka saameynta baraha bulshada ay u dan lahaayeen waxaana ay ahaayeen Samara iyo sidoo kale KCK kuwa baraha bulshada saacadii ugu dambeysay iyo maalmihii la soo dhaafay lagu hadlaynta badnaa mar kale jacaylkooda iyo dhanka muxiibada qaab jiliinkooda ahaa mid aad iyo aad loo soo agaasimay asahaatay Samara ayaa ku tilmaamtay in waxaas uu baraankii ahaa marnaba aanay ku hamiyeen kuna suurtoobin inay guursato ama uu jacaylkeeda noqdo KCK ama shakhsi ku jira baraha bulshada oo caanka waxay sheegtay in iyadu ay caan tahay baraha bulshada ay ku jirto aanay rabin nin baraha bulshada caanka hadii ay u baahnaatana ay dhawaan u shaacin doonto guurkeeda iyo cid ay guursan doonto Samara Queen ayaa sheegtay in baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay aad iyo aad ay u haysteen iyada iyo sidoo kale KCK taasoo dadku waxyaabo fara badan ay iska weydiinayeen oo ku aadan noloshooda iyo jacaylka dhabta ah waqti xaadirkan ka jira baraha bulshada Samara Queen iyo sidoo kale KCK waxay ahayd muddooyinkii la soo dhaafay kuwa dhanka jileenka jacaylka ay ahaayeen kuwa run ahaanshiyahooda dad fara badan ay u soo cabbutumeen waxaana ay ahaayeen taageerayaasha KCK iyo Samara kuwa isugu faatixeynayay in ay maris guursadaan ayna arki doonaan qodwaaqista dhawaan meherka KCK iyo Samara hasaatee ugu dambeyn arintani waxay noqotay mid fashilantay waxaana Samara ahayd mid afka furatay barteeda YouTube-kana ay kaga soo jawaabaysay su'aalo fara badan ay soo weydiiyeen taageerayaasheeda iyo asxaabteeda kuwaasoo arrimaha jacayl midda u gaarka ah iyo sidoo kale waxyaabo iyada ku saabsan ay ahaayeen waxyaabaha inta badan ay la soo weydiinayay iyaduna ay ahayd mid uga jawaabaysay haddaba arrintan waqti xaadirkan soo kordhay ee ku aadan KCK iyo Samara inuu khilaaf soo kala dhex galay sidoo kalena arrintooda ay noqotay mid halbacaad lagu lisay ayaa dad fara badan oo taageerayaasha KCK iyo Samara ay aad uga naxeen waxaana dadku ay isweydiinayeen waxa barnaamijkani burburiyay iyo sidoo kale qarashkii iyo sidoo kale waxyaabihii kala duwanaa ee dhanka muuqaalada quruxoona jiliinkii aadka u fiicnaa iyo sidoo kale muxubbadii laga dareemayay labadooda in ay ahayd mid ay ku soo gabagabowday halbacaad lagu lisay taasoo dadku ay wax badan iska weydiinayaan kuna tilmaameen in arrinkani uu ahaa markiisii horeba mid aan lagu kalsoonaan karin dadkan ay hore u sheegeen in arrinkani uu markii horeba ahaa mid haba yaraatee aan waxba ka jirin arrintani ayaa imanaysa dhawaan markii baraha bulshada muuqaalo leefa gooskoosa laga soo galay taas oo Samara Queen iyo KCK laga hayo waxaana ay hayeen muuqaalada iyo codadka la soo bandhigay kuwa sir xilliyadii kala duwanaa ay iswadaarsanayeen Samara iyo KCK taas oo si weyn baraha bulshada looga dareemayay si walba haatay Samara Queen ugu dambeyn arrinkan ay
shaacisay ee ah in haba yaraatee wax jacayla aan kala dhexaynin baraha bulshadana uu ahaa mid aan la aamini karin, sidoo kalena ay aad ula yaabtay dadka aaminay in Samara Queen ay guursanayso Kinsiki ay ku tilmaamtay kuwa aan waxba garanaynin. Samara ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxay ahayd mid ku taamisay in ay la kala kacsato baraheeda internetka, maadaama dhanka muuqaal daawashada iyo sidoo kale baraha bulshada saameyntii ay ku lahayd aad iyo aad ugu hooseysay, waxaanay ahayd mid ay ku kala kacsanaysay Kinsiki oo markii dambe arrintooda run la mooday kadib markii ay soo duubeen muuqaalo kala duwan oo dhanka romantic iyo jacaylka ah, taasoo ugu dambeyn ay hadda iyadu fashilisay, laguna tilmaamay arrinkani mid waqti xaadirkan kusoo beegmaya in ay doonaysay hadafkii ay lahaydna ay ka gaadhay, maadaama Samara ay doonaysay in ay hesho kumanaan taageera iyo sidoo kale muuqaal daawasho dhanka Facebook iyo TikTok-geeda ah iyo YouTube-kaba, taasoo maalmihii ugu dambeysay ay soo noqnoqonayeen shakhsiyaadka caanka ah iyo dadyoga kale in ay bilaabaan jilin dhanka social media-ha, taasoo inta badan loo malayo in lamaanayaal ama jacayl ahaan ay wax u jirayaan, kadibna ay hadhow dhahaan waxaa jirtay in arrinkaasi uu ahaa baranki, dadkuna ay su-aalo badan iska weydiinayeen. Isku soo wada duuba arrintan hadda ay fashilisay Samara iyo sidoo kale khilaaf kala sheegay inuu soo kala dhexgalay Kinsiki iyo sidoo kale Samara, ugu dambeyn ay Samara afka ku furatay in ay haba yaraatee aanu jacayl kala dhexaynin Kinsiki ee wixii baraha bulshada ka socday muddooyinkii lasoo dhaafiyay maalmihii ugu dambeeyay ay ahaayeen xal bacaad lagu lisay oo barankii ay kusoo gabagabaysay ayaa ahaa mid dadku ay la fajiceen, kuna tilmaameen arrinkaasi markii horeba dadka qaarkood ay filayeen halka qaarna aybaan ay filanayeen, maadaama hambaryada iyo ducadu ay ahayd mid la wada arkayay, waxaana inta badan ay ahaayeen labada shakhsiya caankaas Samara iyo sidoo kale Kinsiki kuwa taageero fara badan ku helay baraha bulshada. Hase ahaatee arrinkaasi markii ay ku dhawaaqday Samara ay gebi ahaanba ka wada xumaadeen jacaylka ah, taasoo ugu dambeyn ay hadda iyadu fashilisay, laguna tilmaamay arrinkani mid waqti xaadirkan kusoo beegmaya in ay doonaysay hadafkii ay lahaydna ay ka gaadhay, maadaama Samara ay doonaysay in ay hesho kumanaan taageera iyo sidoo kale muuqaal daawasho dhanka Facebook iyo TikTok-geeda ah iyo YouTube-kaba, taasoo maalmihii ugu dambeysay ay soo noqnoqonayeen shakhsiyaadka caanka ah iyo dadyoga kale in ay bilaabaan jilin dhanka social media-ha, taasoo inta badan loo malayo in lamaanayaal ama jacayl ahaan ay wax u jirayaan, kadibna ay hadhow dhahaan waxaa jirtay in arrinkaasi uu ahaa baranki, dadkuna ay su-aalo badan iska weydiinayeen. Isku soo wada duuba arrintan hadda ay fashilisay Samara iyo sidoo kale khilaaf kala sheegay inuu soo kala dhexgalay Kinsiki iyo sidoo kale Samara, ugu dambeyn ay Samara afka ku furatay in ay haba yaraatee aanu jacayl kala dhexaynin Kinsiki ee wixii baraha bulshada ka socday muddooyinkii lasoo dhaafiyay maalmihii ugu dambeeyay ay ahaayeen xal bacaad lagu lisay oo barankii ay kusoo gabagabaysay ayaa ahaa mid dadku ay la fajiceen, kuna tilmaameen arrinkaasi markii horeba dadka qaarkood ay filayeen halka qaarna aybaan ay filanayeen, maadaama hambaryada iyo ducadu ay ahayd mid la wada arkayay, waxaana inta badan ay ahaayeen labada shakhsiya caankaas Samara iyo sidoo kale Kinsiki kuwa taageero fara badan ku helay baraha bulshada. Hase ahaatee arrinkaasi markii ay ku dhawaaqday kule horta wax horta social media ka socda weligeena idinka ha aaminina, daraamare u badanaa filin le waaye oo jilin haya anino atrisho weyn ah oo jili ahaa ka waramaade waskii aaminteen miyaa idin kale yani barnaamijkaasito jilin iga ahaa oo maxaa la dhahay